maanta waxaan ku hayaa shay dhib walba ku haysta uga bixi karto. Haddaba ku soo dhawaaw oo la soco ciwaankeena maanta aan ka hadlayno. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Ku soo dhawaaw janaalkeena haddaa naga daawanayso fadlan subscribe noo saar. Hadda page-ka naga daawanayso fadlan na soo follow garee asxaabtaadana la share garee. Waa mahadsantahay. Ciwaankeena maanta haddaan u gudgulno waa istighfaarta. Shayga kaliya ee maanta ku badbaadi karto waa istighfaarta. Sidoo kale gudaha ciwaankan intaan ku jirno aan hadlayno waxaan soo qaadan doonaa axaadiis iyo aayado ku saabsan fadliga istighfaarta. Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam istighfaarta inta xadiis laga wariyay waa fara badan yihiin. Sidoo kale Qur'aan Kariimka inta aayadood istighfaarta ku soo aroortay saa'iday u badan yihiin. Adinka wad garanaysaan balse hal xadiis ayaan maanta soo qaadanaynaa oo aan ku soo koobaynaa barnaamijkeena maanta. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا وارزقه من حيث لا يحتسب. رواه أبو داود. حديث كان نبي محمد صلى الله عليه وسلم ku sheegay qofkii istighfaarta laazima maalin walba istighfaarta dhaha wax uun ka dhaha inta uu awoodo. Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam uusan cayimin intaas dheh muusan dheh intaad awoodo dheh ayuu ku yiri ja'ala Allahu lahu min kulli dayqin makhraja. Ilaahay wuxuu u sameynayaa abaalguri meel walba cariiri ku jiro meel uga baxo irida loo fura. Min kulli hammin faraja. Hammi walba ku jirana waa laga bixinayaa. Warzuqhu min haythu la yahtasib. meel uusan ka filanayna waa laga irsaaqayaa. Allahu akbar. Irsaaqadaadii waa la damaanad qaaday meel aadan ka filanayna lagu irsaaqayaa. Hammi la'aan baa ku noolaanaysaa. Farxad baa ku noolaanaysaa. war haddii risqaaga meel saaran yahay aad wax cunto helayso wax cabto helayso hammi uusan ku haynin salaada aad dukanayso mar walba aad istighfaarsanayso wax kaloo raadinayso maxay tahay ma wax kaloo ka maqan baa jira walaal waa may soo mahan marka mar walba istighfaarta waa inaad laazimtaa. xadiiskaas ayaan maanta mawduuceena ku soo qaadanaynaa intaas ayaan ku ekeenaynaa. waxaan rajeynayaa dhammaantiin inaad ka wada faa'iideen aad la wadaagi doontiin dhammaan inta asxaabta si uga faa'iideystaan iyo walaalaha khayrka jecel. fadlan mar labaad janaalkeena subscribe saar. page-ka haddaa naga daawanayso follow na soo dheh walaalaha khayrka jecelna la wadaag. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.